بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كسو دواada Safi channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo haweenka uurka leh iyo fitamiinaadka ay u baahan yihiin marka ay uurka leeyihiin inay qaataan si ay wanaajiyaan caafimaadkooda iyo caafimaadka ilmaha caloosha ku jira. Marka sida caadada ahba hooyooyinka Soomaalida waa hooyooyin aad mashquul u ah marka ay uurka yeeshaana maadaama ay mashquul yihiin ilooba inay isdaryeelaan oo ay caafimaadkooda ilaaliyaan ee howlahoodii iyo mashquulkoodii waxoodii iskaga dhex jira. Marka arintaasna waxay khatar ku tahay hooyada caafimaadkeeda iyo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkiisa. Arin oo la ignore garayn kara ma aha, waa arin wax ka qabad u baahan oo aniga ahaan idinkana bal waxay idin la tahay waad sheegi doontaan waana ka fakari kartaan. Aniga aan waxaan aaminsanahay hooyooyinka Soomaalida maadaama ay markay uurka leeyahay aanay dietkooda ka fakarin, cuntada ay cunayaan ka fakarin, vitamins-na aanay qaadanin, in ay arintaas sal ku leedahay ilmaha noo dhasha, ilmaha dhalan doona ay sal ku leedahay iyo noloshooda oo dhan iyo say u behave gareeyaan. Waxaan ma raba inaan macnihii kalmadan iraahdo laakiin waa dhahaya. Waxaad moodaa quality-ga caruurta Soomaalida maskaxiyan marka aad sii fiirisid inay wax yar ay hooseyso maskaxiyan caruurta Soomaalida. aniga miyaa mise waa ila aragteen. taasna waxaan isleeyahay markaan ka fakaray waxyaabahan waa ka fakaray markaan ka fakaray waxaan isleeyahay maybe nafaqo xumadii hooyada ayaa ilmahana u gudubtay. marka ay dhashaanna cunto fiican haddaan ilmaha la siinin dee caqli ma yeelanayaan. ilmaha haddaanu caqli yeelanna waxa waaye problems badan ay arrintaas leedahay. halkaas marka arinta ilmaha iyo caqligooda bal aan usoo noqona ee hooyada marka sida isu daryeeli lahayd. hooyada vitamiino rasmi oo waxaa jira lagama maarmaan ah markay uurka leedahay inay qaadato ay khasab tahay, especially wadankan dhulkan Yurubta aan joogno. marka waxaa la yiri hooyada ay balaan garaynayso inay uureysato ama ay uureysataba waa inay qaadataa folic acid kaniin la yiraahdo. folic acid kaas oo loogu talagalay inuu ilmaha ka difaaco inuu birth defects yeesho. birth defects like inuu cunugaasoo wadnaha ka jiran dhasho ama spine-ka ka jiran dhasho ama maskaxda ka jiran ama xitaa birth defect waxaa ah oo kale ilmihii inuu dhasho ilmihii asagoo faruuran. ilmaha faruuran oo dhasho waa birth defect. marka birth defectigaas noocaas ah ayay kiniinkaas folic acid-ka la leeyahay ayuu ciyaalka ka difaaca ayaa la sheegay. marka maxay tahay folic acid-ka kiniin ahaanna waa jiraa oo anaga qolyaheenan qurbaha Yurubta ku nool kiniin ahaan ee dhakhtarka uu ku qoraya markaad uurka yeelatid. asaga qofkan kiniinka haysanna cuntooyin badan oo laga helaa jira. cuntada cagaarka leh oo dhan waa laga helaa sida maxay ahayd avocadada, cauliflower-ka, broccoli-ga, celery-ga, maxay tahay asparagus-ka bahalkay dhahaan Afrika lagama helaa u malaynayaa. cuntooyinka seeds-ka like sunflower seeds, pumpkin seeds, nuts-ka like lowska oo kale, almond-ka oo kale, waxyaabahaas oo dhan waa laga helaa folic acid-ka cagaarka, nuts and seeds. haddaad cuntooyinkaas qaadatid folic acid waa ku jiraa. fitamiinka kale oo hooyada u baahan tahay muhiimka ah wuxuu yahay vitamin D. vitamin D oo very important vitamin ah. haddaad uur leedahay haddaadan uur lahaynba important ah, khaasatan haddaad dhulkan qaboobaha ku nooshahay more important kuusii ah maadaama aan qabow ku noolnahay qoraxda aan helnaa ay yar tahay. vitamin D-ga waa very important. dadka Soomaalida way ka boodboodaan waxay u arkaan like
vitamin waxa duu yahayna waa by choice oo kale waaye markaad iska cun markaad cunin is just a vitamin laakiin markii daawo loo soo qoro way cunaan vitamin D marka loo soo qoro laakiin way kala iloobaysaa waxa leedahay awba vitamin aha wax macnaheedu important ma aha wax life saving ma aha is life saving vitamin D waa important vitamin D ga wuxuu regulate gareeyaa calciumka iyo phosphate-ka bodiga ku jira oo looga baahan yahay lafaha murqaha iyo ilmaha caloosha ku jira lafihiisa iyo murqihiisa iyo ilkihiisa vitamin D ayuu u baahan yahay hadaanu helin intaasba asagoo ka jiran uu dhalanaya marka vitamin D ga waa important vitamin D ga sida wada ogtihiin qoraxdan ka helaa jirkeena marka qoraxda loo dhigo ayuu vitamin D ga qaataa marka qoraxda naftirkeeda inaad isu dhigtid oo maanta oo dhan aad fadhidid dibkeeday leedahay limit loo baahan yahay inaad qiyaastid limit ayaa jira marka limitka adaa laga rabaa inaad garatid marka qoraxda isu dhigtid inaad gubatid inaad gaadid ma aha waa inaad cabaar qoraxda isu dhigtaa inkastoo waliba la yiri dadka madmadow qoraxda moor u baahan yihiin dadka cad qorax yar u baahan waxa laga yaabaa for example aan ku leeyahay ma aha wax rasmi ah laakiin for example qofka madow haduu 20 qofka cad haduu 20 daqiiqo qoraxa u baahan yahay adiga 30 ilaa 40 daqiiqo ina qoraxda fadhida u baahan tahay dadka cad wanaga maqaar khafiifsan yihiin qoraxda markiiba ayaka waa ku filan tahay laakiin adiga maadaama aad madowdahay iyo waxa la maadaama aan korkeena dadno qoraxda waa inaan moor isu dhignaa laakiin qiyaas ayaa loo baahan yahay vitamin D ga cuntooyinka laga helo ma badna cuntada vitamin D ga laga helo waa kalluumada oil fishka ay yiraahdaan sida salmonka sardiinka iyo mackerelka waxa kaloo laga helaa ukunta na waa laga helaa marka maadaama vitamin D ga laga helo cuntooyin kooban waxa marka dhaqaatiirta ay ku taliyeen especially wadankan aniga aan joogo dhaqaatiirta waxay ku talinayaan inuu qofka vitamin D u qaato kiniin ahaan inaad u qaadato vitamin D maadaama cuntooyinka laga helana ay kooban yihiin wadankan qoraxda ay kooban tahay waxa lagu talinayaa laga bilaabo ilmaha 5 jirka ah ilaa qofka weyn oo ay ku jirto qofka weyn oo uu ku jiro hooyada uurka leh iyo hooyada naaska nuujinaysa intaba waa inay vitamin D kiniin ahaan u qaataan waa khasab dhaqaatiirta saasi ku taliyeen wadankan aan ku noolahay laga bilaabo 5 jir ilaa qofka weyn lagu daro hooyada uurka leh iyo hooyada nuujinaysa kulli waa inaan vitamin D tablet qaadano ayay dhaqaatiirta ku taliyeen marka vitamin D tablet inaad ka boodid ama dhayalsatid ma aha qodobka saddexaad vitaminka saddexaad ee hooyada u baahan tahay markay uurka leedahay waa iron sida aad wada ogtiin booyooyinka markay uurka leeyihiin especially bilaha u dambaysa 3 bilood oo u dambeeyo uurka dhiig yaraan nagu dhacda dhiig yaraantaas oo ka imaanaysa ilmahan koraya oo u baahan more nafaqo iyo more nutrition u baahan iyo hooyadiyo daalan oo laga yaabo inayna si fiican isu xanaaneynin cunto fiican cunin waxyaabahaas oo dhan markay isbiirsadaan dhiig yaraan dhacda 3 bilood oo dambe uurka 3 bilood oo u dambaysa dhiig yaraanta marka astaamaha lagu garto waa taqaaniin waa daal waa neeftuur waa wareer waa wadna garaac waa hurdo xumo astaamahaas oo dhan haddaad isku aragtid micnaheedu waa dhiigga ka yar haddaad marka astaamahaas isku aragtid oo dhiigga inuu ka yar yahay ogaatid waa inaad si degdeg ah dhakhtarkaaga ula xiriirtaa arrintaas aadan ka boodin arrinka boodis u baahan ma aha caafimaadkaaga iyo ilmaha caloosha ku jiro ayaa ku xiran vitaminka afaraad oo muhiimka ah ee hooyada u baahan tahay markay uurka leedahay waa vitamin C vitamin C asagana waa vitamin important ah cellska oo dhan ayaa u baahan bodigeena unugyadiisa oo dhan ayaa ku shaqeeya vitamin D vitamin D ga cuntooyinka laga helo asna waa cuntooyinka cagaarka leh iyo fruitka black currant strawberry-ga maxay hayto Soomaaliya hadaad joogtid saytuunka gawaafaha ama saytuunka Soomaaliya hadaad joogtid vitamin C baa ku jira waxa kale oo vitamin C ku jira Soomaaliya dadka jooga bambeelmada oranjada
vitamin C ku jira iyadana bambeelmada marka waxaan hal midan idin kala dardaarmayaa haddaad tahay qof daawo qaata joogto ah for example ama qof dhiikar qaba ama macaan qaba ama xanuun kala qaba oo aad daawo joogto ah qaadatid bambeelmo kugulama talinayo bambeelmada ka fogow maxaa yeelay bambeelmada waxaa la sheegay qofka daawada aad cunaysid ee xanuunka u qaadanaysid inay dhabal garaynayso daawad cuntay daawadii more ayuu jidhkii absorb garaynayaa intuu absorptionkii kordhinaysaa marka absorptionka markuu kordhisana daawadii waxay double dose camal kugu noqonaysaa daawadaadi caadiga ay qiyaastii adoo qaadanaya haddaad bambeelmo ku qaadatid absorption badan ay gelinaysaa marka daawadii kugu double garoobaysa marka dadka dawooyinka joogtada ah qaata bambeelmada ha ka fogaadaan also haddaad hooyo uur la tahay ka fogow maxaa la dhahayay beerka vitamin A ayaa ku badan marka beerkana kuma fiicna maadaama uu vitamin A ku badan yahay waxyaabaha vitamin A ga ku badan yahay oo dhan iska ilaali cod liver oil oo kale vitamin A ga ku badan marka waa inaad ka taxadirtaa fitamiinka u dambeeyo aan hooyada kula talinayo waxay tahay waa calciumna sida aad wada ogtihiin waxaa u baahan lafaha iyo ilmaha uurka ku jira lafihiisa iyo ilkihiisa calcium ay u baahan yihiin calciumka sida aad ogtihiin waxaa laga helaa caanaha yogodka cheeseka cagaar ahaan kaylka oo kale bahalkaan ay yiraahdaan calcium badan ayuu leeyahay hase yeeshee caanaha markaa idin leeyahay iyo yogodka waa inaad xulataan caanaha aad cabaysaan horaan uga wada hadalnay caana nan organiga haddaad cabaysid faa'iido kuma laha yogodka oo kale waa inuu yogod plain ah yahay organic yahay yogodka suuqa yaale sonkorta ka buuxdo faa'iido kuma laha marka haddaad hooyo uur la tahay waxaa kuu fiican adoo vitaminadaas qaadanaya haddana in aad dietkaaga iyo cuntada aad cunaysid aad ka taxadirtid oo cunto fiican oo nafaqo aad ka helaysid cuntadaas marka energy badan ay ku siinaysaa caafimaad ka helaysaa ilmaha caloosha ku jirana nafaqo ka helayaa marka hadda waxaa dhalanaya ilmo caafimaad qaba oo caqli leh oo ma garanaysaa inta uu nool yahay noloshiisa maxay to caafimaadkaas ku soconaya cuntadaada markaad wanaajisid oo aad habit ka dhigtid intaad uurka leedahay kaliya ma aha waa inaad arrinta cuntadiina aad uga fakartaan oo wax ka bedeshaan cuntooyinkii hadda waxyaabo badanaa laga sheegay waaba soo koobteen waaba soo yaraadeen marka waa inaad xulataa wax aan kalif kugu ahayn caafimaadkaagana u fiican aadna samaysan kartid waa inaad ka fakartaa wax lama rabo 2 maalmood intaad samaysid maalinta saddexaad aad ka caajistid lama rabo midda kaleeto hooyooyinka ay amba hooyan ahayoo uur waa soo yeesho carruur waa soo dhalayo howlahaas waa soo maray midda kale commonka naga ah inkastoo aniga aanan shaahay saas u jeclayn waxay tahay hooyada markay maanta oo dhan ilmaha daba orado daasho caajisto wareerto intay cunto samaysan lahayd waxay leedahay koob shaah ayay samaysanaysaa because asaga ugu sahlan wax la sameeyo ugu dhaqso badan 5 qaadoo sokorana way ku daraysaa kaasi isku daminaysaa marka haddaad uur leedahay sonkorta waa khatar ayay ku leedahay waa ogtihiin uurka markaan leenahay Yurub oo kale sonkorana laga baara dadka qaar uurka xitaa sonkor ay ka qaadaan marka sonkortana waa inaad yaraysaa oo si ilgaara ku eegtaa especially inta aad uurka leedahay waa inaad sonkorta ilgaara ku eegtaa oo aad sonkorta ka dagaalantahay oo iska yaraysaa shaaha cab haddaad doontid laakiin baro inaad sonkor la-aan ku cabtid waa inaad barataa wax walba waa barasho carabka waa la train garayn karaa waa very easy inaad carabkaaga train garaysid oo aad bartid shaah bilaa sonkor markaad baratidna habiday kuu noqonaysaa mid dambe oo sonkor lama taabanaysid marka videogan waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen haddaad ka faa'iidaysateen ama jeclaysateen thumbs up subscribe gareeyana lana share gareeya inta aad jeceshihiin haddaad wax su'aalo qabtaan xagga hoose iigu soo qora anoo isku dayi doono inaan idinka soo jawaabo. Assalaamu calaykum waraxmatullah.